dhalinyaradu waxay bilaabeen inay cududooda mideeyaan ayna samaystaan hoggaan rasmi ah bishii August 2006 ayaa horjoogayaashii mucaskaraadka iyo saraakiishii sare ee jihaadiyiintu ay u arkeen in la soo gaaray xilligii ay urur ahaan u dhismi lahaayeen wakiilada 4 qaybood oo siyaabo kala duwan ugu jiray maxaakiimta islaamiga ayaa isugu yimid magaalada Muqdisho si ay u dhisaan dhaqdhaqaaq cusub afartaasi qayboodna waxay kala ahaayeen 2 mucaskar oo xoog iyo cududba ku dhex lahaa maxaakiimta islaamiga ciidan ahaanna u dhisnaa iyo 2 garab oo ka soo go'ay maxkamadihii qaabka beeleed ku salaysnaa ee maxaakiimta islaamiga garabka koobaad waxa uu ahaa mucaskarkii Salaaxudiin ee magaalada Muqdisho ee uu horjoogaha u ahaa Axmad Cabdi Godane garabka labaadna waxa uu ahaa mucaskarkii Raaskambooni oo uu horjoogo u ahaa Sheekh Xasan Turki labadaas mucaskar waxaa ku soo biiray garabyo ka tirsan 2 maxkamadood oo islaami ah oo kala ahaa garab ka mid ah maxkamadda islaamiga ee degmada Yaaqshid iyo maxkamaddii islaamiga ee Ceelgaras ee gobolka Galguduud wakiilada afartaasi qaybood oo gaaraya ilaa 30 ayaa ku shiray guri ku yaala magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa warshadii baastada iyo hotel Ramadaan waxaana halkaasi lagu yagleelay urur ay leeyihiin afartaasi qaybood waxaana loo bixiyay Al-Shabaab waxaa halkaasi lagu doortay hoggaankii ugu horeeyay ee rasmi ahaan shabaab ku yeeshaan dadkii shirkaasi joogay waxay ii sheegeen in halkaasi lagu doortay markii ugu horeysay amiirkii ugu horeeyay ee uu yeesho ururka Al-Shabaab waxaana loo doortay Ismaaciil Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Caraale oo ka yimid dhinaca mucaskarka Salaaxudiin mucaskarka Raaskambooni waxaa la siiyey ku-xigeenkii amiirka Al-Shabaab waxaana iyagu ay jagadaasi siiyeen Sheekh Maxamed Axmed Islaam Sheekh Axmed Madoobe Sheekh Axmed Madoobe oo joogay madasha lagu aasaasay Al-Shabaab ayaa iiga waramay wixii lagu wada hadlay dadka ugu sii firfircoon baan ahayn qaybihii dagaalamayay ayaa waxay noola yimaadeen fikir ah inaan midowno oo annagu aan isu keenno fikir ah inaan qaadano system gooni oo annaga isku xiran oo maxaakiimtaan ay leeyihiin marka dad badan baa ku jira kuwa waxaa ku jira manhaj ahaan aan caqiid ahaan dursannahay iyagoo markaas ashaaciro iyo saasoo kale noocaasoo ku waxaynaya adu markii dambe cadaadisyo badan oo yimid waxay noqotay inaan labadanadii group aan wada fadhiisano fadhi dheer oon gallay kadib yaa waxaan ku heshiinay inaan system gaar ahaan markii dadkii dhalinyarada ah ee markaas ishaarayay inay dad system jihaadi ah oo ka baxsan sistamyadan kale ee iska socda inay yihiin inaan ku midowno oo aan urur markaas dhisano ururkan hadda magacaan ay qaateen Al-Shabaab aanu qaadanay markaas oo nin Ismaaciil Caraale la yidhaahdo oo markaas Bakistaan ka yimid arday ka ahaa ay keeneen la yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaad mas-uuliyaddan la siisaan oo ninkaasi uu noqdo mas-uulka xarakada idinkuna reerkamboon aan naa'ibka iyo mas-uulka shuurada ay yeelataan sidaasaan ku heshiinay Ismaaciil Caraale markaa uu noqday ninkii ahaa mas-uulka ururkaas ka noqday aniguna waxaan ka noqday ku-xigeen baan ka ahaa xasan cabdullahna wuxuu ka noqday shuurada marka waxaa maqla in lagu aasaasay guri ku yaala Muqdisho inta u dhaxaysa caymiska iyo warshada baastada oo la dhihi jiray Baytul Wuxda sax miya ma ahayn gurigaan fadhiyay wuxuu ku yaalay inta u dhaxaysa ex control iyo meesha la yidhaahdo meesha hotelkii Ramadaan oo kala Ramadaan Baytul Wuxda guri loo kaleysnaayo kookoola ka soo jeeda lagu shiri jiray waxaan kaloo ku sheegaya waxyaalaha aad cajiibka u ah marka aniga iyo Ismaaciil Caraale lama magacaabay yaa wuxuu in cabdigabeeleed waxaan u baahannahay waan iibinayna oo maxaa nagu iibinaysaa isqariya yaan laydin arkin qiimo yeesha qofka 3 bilood baa la ballaminaya maxaa lagu ballamin waxaa weeye inaan qofka la aro qofka casiis uu noqdo oo waradanay maxamed wasfiisi sidan uu ahaa mas-uuliyadda oo qaadaysa dadkiina aan iska qarin maya waxa weeye dadku marka lagu waayo aragtida lagu diido qadarin bay yeelanaysa waa waxyaalaha hadda isagu ku dhaqmayo oo waxaa 2006 annaga tan ahaan nagu soo jeediyeen sidaas yeelo waxaan isleeyahay mana aha shay diini oo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu laan dhex joogay axmed la ooli jiray dhex fadhiyi jiray markaad ku laabato shirkii lagu aasaasay ururka hoggaankii maxkamadaha laguma marti qaadin soo ma hoggaanka maxkamadaha waa dadkay durayaan bay ka mid ahayn oo matala ay leeyihiin kuwa shaaciro weeye qoladaasi kuwa suufiye kuwa sidan inta kale oo dhan wax la durayay buu ahaa laakiin aanan annaga laftirkeedu markaa isku waafaqsanayn si dhaba way ogaayeen in meesha wax badan socdaan laakiin maynan ogeyn ama laguma marti qaadin ama si dhaba looguma sheegin wax noocaasoo lagu heshiiyey Sheekh Axmed Madoobe waxa uu ii sheegay in xilligaasi Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay imaarad islaami ah kaga dhawaaqaan koonfurta Soomaaliya taasi oo ka madax bannaan maxkamadaha islaamiga waxaa dhacday markaa Haruun oo markii aanu ka soo baxay dagaalkii Kismaayo aan soo galay Kismaayo aanu nimid waxaa la soo diray guddi ka tirsan maxaakiimtii oo in cabdigabeele oo markaas Salaaxudiin ku galay filinta maxaakiimta oo ahaa xogeyaha maxaakiimta islaamiga ahayd dadkii hogaaminaya 9 ala keenay waan wada hadalnay waxyaalaha gariibka waxaa ka mid ahaa
guddi waa waqtigii la socday intuu ka yimaado habeenkii hore inaan anagu dood iyo isku hayno oo isweydiinayo waxa uu ka doodaya kana ay tahay meeshaan iyada hadda magaala naga awood ciidanka ugu badan reerkaas ambooni iyo salaaxudiin markii la yiraahdo system dhisana ciyaar islaamiga halkan ka dhiso aan ka yeelo wax badan oo noocaas oo kala waxa xasilida marka xiliga maamulka gobolka uu jiray ee la dhisay waxa maalintii dambe ka warhelay in dad la qabanayo magaalada gudaheeda habeenkii dad baa laga baxay teel baa laga baxay sheeko badan oo noocaas oo kala arrintii aan raadiyay ibraahim xaajama iyo umar cabdullaahi yala la yiraahdo la shaqeynaya group noocaas marka waxaan ka warhelay inay noocan ay u shaqeynayaan oo ah inay dadkii lala baxayo waxyaalo la weydiinayo dhibaato kale magaalada gudaheeda ay ka wadaan taasa markaa waxay sababtay inaan iyagii laftooda magaalada u sheegeen inay ka baxaan sababtoo ah wixii maamul baanu lahayn waxaana dhibaatada ugu badan ah inaad adigu maamul meeshii ka tahay summadii adigu ay gacantaada ku jirto haddana adiga intaad afka soo duubato aad waxsirayso oo qof xadayso oo qof aad kari karayso inaad intaa u yeedho maxkamad istaajiso sharciga lagu qaado dembigiisa aad ku fulin karto haddii dil loola hata aad ku fulin karayso haddana in dadkii nooca argagaxana loo geysto wixii in ay noqoto wax iska adiga aad xadayso maamulkaaga xadayso